maalin maalmaha ka mid ah ayuu ka soo rawaxay suuqa isaga oo dameerkiisii wata lacagna sita. isaga oo dariiqa ku soo jira ayaa waxa ka soo horbaxay nin tuug ah. kabatolihii ayaa naxay waxaanu ka baqay inuu lacagta ka qaato. kadib waxaa maskaxdiisa ku soo dhacday fikrad cajiib ah. lacagtii uu sitay ayuu qoorta u geliyey dameerkii. tuuggii ayaa markii uu lacag ka waayey ayuu isku dayay inuu dameerka ka qaato. laakiin kabatolihii wuu bariyey waxaanuu ka codsaday inaanu dameerka ka qaadin. waxa uu baryaba dameerkii ayaa ciyey kadibna lacagtii ayaa ka soo dhacday. tuuggii ayaa ka yaabay dameerka waxaanuu mooday inuu dameerku lacag samaynayo marka uu ciyo. tuuggii waxa uu ka codsaday kabatolihii inuu dameerka ka iibiyo kadibna uu ka iibiyey. kabatolihii waxa uu tegay gurigiisii isaga oo lacag badan sita. tuuggiina gurigiisii ayuu tegay isaga oo dameer wata. habeenkii oo dhan ayuu sugayay inuu lacag sameeyo dameerku markasta oo uu ciyo. laakiin bilaa faa'iido dameerku mid lacag samaynaya muu hayn. aroortii markii ay gaadhay tuuggii ayaa xanaaqay wuxuuna damcay inuu lacagtiisii soo ceshado dameerkana u celiyo kabatolaha. kabatoluhu waxa uu sii ogaa in uu tuuggu iman doono gurigiisa si uu lacagtiisa u soo ceshado. kadib islaantiisii ayuu ku yidhi waxaan tegayaa beerta. haddii cidi kaa weydiiso waxaad ii soo dirtaa eyga xaafadda. tuuggii ayaa imid gurigii wuxuuna weydiiyey islaantii xagga uu jooga ninkeedii. islaantii ayaa u yeedhay eygii waxayna ku tiri orod oo u yeedh kabatolihii. eygii ayaa tegay beertii. in yar kadibna waxaaba la arkay kabatolihii iyo eygii oo soo wada socda. tuuggii waxa uu la yaabay sida uu eygu wax u fahmayo. kadib waxa uu damcay inuu ka iibsado eyga waanuu ka iibsaday. maalintii dambe tuuggii ayaa doonay inuu suuqa tago waxaanuu reerkiisa ku sii ballamiyey haddii cidi kiin weydiiso ii soo dira eyga. wax yar kadib tuugga saaxiibadii ayaa gurigii imid waxayna weydiiyeen mee odaygii reerku. sidii uu horeba ugu sheegay reerkiisa waxaa loo soo diray eygii si uu ugu yeedho laakiin eygii waxa uu toos u tegay xaafaddii kabatolaha. ninkii tuugga ahaa ayaa ku soo noqday gurigiisii waxaanuu xaqiiqsaday in la khiyaameeyey mar labaad oo aanuu eygu ahayn sidii uu moodayey. waxa uu go'aansaday inuu ka argoosto kabatolaha. kadib waxa uu u yeedhay niman kale oo ay saaxiib yihiin islamarkaana iyaguna tuug ah. isaga iyo saaxiibadii ayaa tegay xaafaddii kabatolaha. laakiin markan umuu socon inuu lacagtiisii soo ceshado balse waxa uu u socday inuu kabatolaha kaga takhalluso oo uu dilo. waxa uu damcay inuu kabatolaha jawaan ku rido kadibna uu webiga ku tuuro si aan loo helin meydkiisa. tuuggii waxa uu sameeyey sidii uu rabay. iyaga oo waddada ku sii jira oo sita jawaankii kabatolaha lagu riday ayay yara luloodeen waxaanay is yidhaahdeen in yara gam ah si aad socodkiina u sii wadataan. nimankii tuugta ahaa oo hurda kabatolihiina weli jawaankii ku jiro ayaa waxa soo maray waddada nin socoto ah oo hanti badan wata. isla markiiba kabatolihii waxa maskaxdiisa ku soo dhacday fikrad cajiib ah. isaga oo ku dhawaaqaya ibadbaadi ibadbaadi ibadbaadi. ninkii socotada ahaa ayaa weydiiyey sababta jawaanka loogu riday. kadib kabatolihii ayaa ugu jawaabay waxaan ahaa nin boqor ah. tuulo ayaan maamuli jiray laakiin waan ka soo baxsaday. waxaan doonayaa inaan nolol caadiya ku noolaado laakiin dadkii tuulada ayaa isoo xidhay waxayna rabaan inaan weli boqor u ahaado ee meeshayda adigu gal oo boqor noqo. ninkii socotada ahaa ayaa la dhacay hadalkiisa. waxa uu ka furfuray jawaankii kadibna kabatolihii ayaa ku xidhxidhay jawaankii ninkii socotada ahaa. saacado kadib tuugtii ayaa soo toosay markaasay qaadeen jawaankii. markii ay gaadheen webigii ayay ku dhex tuureen jawaankii. iyaga oo faraxsan oo moodaya inay kabatolihii dileen ayuuba ka soo horbaxay isaga oo wata hantidii ninkii socotada ahaa oo ah kii webiga lagu tuuray. tuugtii ayaa fajacay waxayna su'aaleen kabatolihii xaggeebaad ka soo baxday sahalkeebaad ka keentay waxaan oo hanti ah. kabatolihii ayaa si dhib yar ugu jawaabay webiga hoostiisa waxaa ku jira dahab iyo hanti badan. waxaanoo hanti ah eed arkaysaanna webiga hoostiisa ayaan ka keenay. nimankii tuugta ahaa xamaasad ayaa qaaday
waxayna ka codsadeen kabatolihii inuu dhammaantoodba jawaan ku dhex rido kadibna uu webiga ku tuuro. ninkii kabatalaha ahaa sidii ay ka codsadeen ayuu sameeyey, kadibna gurigiisii ayuu ku soo noqday isaga oo bad qaba, hanti badanna wata.